أنا شالي هذا كابتن كاتر سرعيدا كدفاع كنت أنا بعناهي وحي وحقبضة أو هدلا كورنيا كجري على المسكان أنت تروح حقوقان waxay ahaayeen dad dalka joogay waxaad haydeen dadkii gurmadka iyo gaashaanka iyo daawada iyo taakulada la garab taagnaa iyo hiilka waxaad haydeen bulshada qaybteeda kala duwan waxaan ku arkay furimaha iyagoo lugaynaya sida hadila ku hooyo taakuladii iyo garabkii ciidannimada loogu talagalay dadka reer Puntland ka sinaayeen oo ku baaqay hadila ku hooyo madaxweynuhu iyo golayaashii loo dhisay iyagoo biyihii iyo cuntooyinkii loogu talagalay wax loogu yimaadeen furimihii taasi waa intaas tan kale maanta waxa la marayaa meel gabagaba ah saakay waxaan u qorshaysnaa safar iyo geesa qabad saraakiisha ay soo wacday oo munaasabada naga soo qaybgelisay saasa lagu soo wargeliyay hadda waxa la marayaa dagaalkii iyo meeshii noolay waxa maraysaa meel gabagaba ah nimanka awoodoodii waxay ku soo ilaatay toga la yiraahdo baarade oo waliba intiisa sare oo sida la yiraahdo iyo baaradaha sare oo jidxin iyo dhulkaas oo dhan laga soo safeeyay saddex god ilaa laba god ma ku jira baa meesha ku godoonsan ciidamada dhinacyada ka taagan yihiin xagga bacaad iyo badda cas ciidamadii ka soo baxay waa weeyeen dhinaca kan iyo toga mareeroodna warbixinteeda waa haysaan wadadii dhaadhaarka ilaa boosaaso isku xidhaysay baa hadda waxay soo maraysaa meel oo 11 kilomitir waxay u soo jiraa inay qarka kaga soo degto waxaan rabnaa reer Puntland dhammaantood halkan waxaan la baaqayaa in aynu u muuqanno dad dagaalkana ku jira horumarinta magaalooyinkooda iyo wadatashigood iyo isku duubnidooda ku jira oo dadka shacabka ah ganacsatada iyo dhalinyarada aqoon-yahaniinta ah iyo dadka hal abuurka ah ay u muuqdeen horay ugu muujiyeen dadaalkii iyo dareenkooda inay ugu muujiyaan maadaama aan nahay saraakiil qofka sarkaalka ah ma aha qofka siyaasiga ah oo kaleeto oo marna xilka loo dhiibo marna laga qaado isagu markasta waa qof xil haya kuna hadli kara afka dawladda waxaan dawladda iyo hadila ku rooyahay madaxweynaha ugu baaqaya sida odayaashu sheegeen maadaama reerkaani ahaayeen reerkii ugu horeeyay oo hal habeena 36 nin qaybna ay noqdaan wax dhintay qaybna ay noqdaan wax dhaawac oo aad waxa jira 87 nin ku baxday oo dalka Hindiya la geeyay halkana dhadhanka iyo urka toonna aan lahayn waxa jira kuwa kharash kasta la mariyay oo kastoo caafimaad hadda kala bay joogaan oo lugahooda iyo dareen lahayn waxa jira kuwa waaxahood iyo nafahood ku waayay laakiin waxay ahayd 36 nin waxa ku jiray wiil yar iyo aabihi iyo abtigiis wiilkii yar uu dhaawacmay abtigiis iyo aabihiisna way dhinteen maadaama marka beeshaan tahay beeshii ugu horeysay oo dhibaatadaas ku dhacday maadaama ay tahay reeraha aan weligood mucaarad oo ka hor iman dawladda kala shaqeyn farqalada iyo duminta iyo kala qaybsanaanta Puntland maadaama ay tahay reerkii ugu horeeyay oo dagaal kasta oo la galo sida saliid suuq iyo garmaal kii gaalkacayood laascaanood iyo kambariga hadda lagu jiro reer mar walba garab taagan naf iyo maalma ku bixiya maadaama ay tahay reerka kaliya oo aan weli qof argagixiso ah ama la shaqeeya ama lug ku leh ama hadila ku reey taageero aan weli leeyahay waxaan ka codsanaynaa dawladda waxaan ka codsanaynaa madaxweynuhu ugu horeeyo in il gaara lagu helo si odayaashaas iyo hormooyinkaas wiilashoodii ku waayay berri waa la saami tirsan doonaa fagaara la isugu iman doonaa nin walba wuxuu qabo iyo wuxuu geeyey baa hadila kuu rooyay imaan doonta marka idinkuna hadila kuu rooyahay weli waxaynu ku jiraa dagaalkii dhaqaalaheenna iyo qorshaheennu wuxuu weli ku wajahan yahay dagaalkii mid siyaasadeed iyo mid meeljeesi oo kaleeto weli dawladda kuma hawlana laakiin waxaan rajaynayaa sida aad jeceshihiin ama uurkiina ku jirta iyo waxaad talaysaan inaad heli doontaan haddii aad u rooyahay dawladdu inay ku soo dhaweyn doonto
garaadka iyo nabadoonnada iyo caaqilada meesha joogana haddii la kuu hoyo insha Allah madaxtooyada lagu casuli doono afkaartooda iyo aragtidoodana laga dhageysan doono aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan soo dhaweynayaa guuleystaan leeyahay